tilmaamay badbaadada carruurta bay ahayd haddana waa dhalinyaradii baa meesha fadhida marka aynu ka wada faa'iidaysano ilaahay subxaanahu wa tacaala allah idin barakeeyo isaga iyo sheekh cabdullaahiba falyatafadal mashkuura ما حدودي كنا هذا الحلقة كنا كافي عن قطعهم حسادي حدودي ودار النصال عليكم السلام. دي اللي يريد الله يرضى وشك إذا كاميرات مرة بس عم ولا فايدة سنة إلا هي عالم كان لقاها فايدة سنة أنت أن لم يضم أيضا حقك مصلحة إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني محاضركم بس وتلقى لنا هالكيران ومر يا ليدي لأن يرضي بقرصة ويدي قرصة ده هذا قرصة ده مركا هذي اللي يدرى قرصة ده runtii dhallinyaranimadu waa wakhtiga ugu fiican ee nolosha ka mid ah waa wakhtiga uu qofka bini aadamkii dhiso adduunkiisa iyo aakhiradiisaba waa wakhtiga keliya aan cidilo lahayn qofku markuu weynaado xidhiidhkiisa tiro bata mujtamaca xidhiidhku la leeyaha ku tiro bata marka waqtigiisa inta badan isagu ma laha dad kala leh laakiin qofka dhalinyarada ah waa qof isagu hanta waqtigiisa dhamaanteed waana waqtiga ugu fiican ee uu qofka bini aadamkiisa dhisi kara adduunyo aakhiradiisaba ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال آخرة أنك dhalinyarada ka waramayay wuxuu ku tilmaamay dadkii عرش الرحمن كهرسنايا مالنتا قيامة إدتكو كديدن يهي أو كنتم كونوا السندود لتاغن يهي أو خلقي قال حسابين أيو أو قف وليبا وحو قيستي مالنتو قان قاري إلا إيا مالنتو كردمان أيو وحو سميي وحو دقيستي إل إيادك إيا قلبي إيا ميل وليبا وحي سميسي لحسابين أيو وحساب آدو أدك وقفك بنادم كاهي سنة maalinta kadeedkaasi jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay 7 qof oo kadeedka iyagu aan ku jirin ilaahay carshigiisa hadhsanaya oo xagga alle subxaanahu wa tacaala laga maamusay 7da waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati illaah nin dhalinyaro ah oo ku barbaaro ku kobcay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa da'daasi waxay tahay da'da mabaadi'da la xambaaro haddaad aragto dunida isbedelada ka dhacee taariikheed haddaad baadho dhammaantood da'daasaa samaysay xataa kuwan galbeedka thawraadkii ka dhacay thawraddii faransiiska tii ka dambeysay tii shuuciyadda ardada jaamacaadkay ahaayeen dadka ugu badan ee isbedelada dunida sameeya waayo waa dadka ugu badan ee bay yidhaahdaan riskiga waajihi kara qofku markuu yara gaboobo uu xisaabtamaa uno talow carruurtii iyo reerkii iyo kaariyeerkii waxbuu ilaaliyaa kaloo masaalix kaluu daydayaa laakiin waxay yidhahdaan qofku markuu dhalinyarada yahay waa riski taker walidaalika waa da'da mabaadi'da qaadda markaynu leenahay waa da'dii nebi maxamed u hihilisay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii koowaad 10 المبشرين intaba nebiga ka weynaa nebi maxamedna 40 jir baa lagu soo diray 10 المبشرين wax 40 gaari kuma jirin Abu Bakar baa ugu weynaa 37 jir buu ahaa Mala Uthman baa ku xiga 34 buu ahaa Umar 37 jir buu ahaa Sa'd ibn Abi Waqqas 17 jir buu ahaa Zubayr ibn Awaan 12 jirkaas uu ahaa Ali isagu 10 kaabu ka yaraa baa la yiraahdaa Talha ibn Ubaydillah sidoo kale ahaa Abu Ubayda ibn al-Jarrah 24 jir buu marka la isku soo wada duuduubo ragii diinta tan u halgamay ee xambaaray siday shabaab bay ahaayeen dhalinyar bay ahaayeen
odayadii quraysheed waxay ahayd kuwii diinta ka hor yimid sanaadiidu quraysh wixii marka dambe ka islaamay mooyaane abu sufyaan iyo baa ka islaamo markuu 21 sanadood nabi maxamed la diriirayay buu islaamay abu jahal iyo dee mughira ibn shu'ba kuwaasina waa ku dhinteenba mughira ibn shu'ba ma aha saxaabigii alwalid ibn mughira waa ku dhinteen sanaadiidu quraysh ubay ibn al-khalf waxay ku dhinteen gaalnimadii iyagoo diinta hortaagan waxaan markaa uga dan leeyahay kow dhalinyaradu horta waa inay diintooda u fakaraan waa shayga koowaad aakhiradooda inay ka fakaraan iyo waxay la kulmi doonaan nolosha adduun markay tahay iyo nolosha aakhiraba waxyaabaha ka mid ah guurkaa ka mid ah waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay qofku hadduu guursado nisfu diinihii inuu u dhammaystirantay falyattaqi illaaha fi nisfi alaakhar buu nabigu ilaahay uga cabso nuska soo hadhay dadku inta badan dee waa afka iyo farjiga waxaa inta badan rabshadu ka raacda waxa la cuno iyo galmo haddii uu qofku guursado nabigu wuxuu ku tilmaamay nisfu diinihi inuu kamishay diintiisa nuskeeda inuu ilaashaday waladiina hum lifuruujihim xaafiduun qur-aanka in badan baa ku aragteen marka laga warramayo jannada ulaa'ika fi jannaatin mukramuun kuwa lagu tilmaamayo ama alwaarisuun jannatulfirdowsa kuwa dhaxlaya sifaadkooda waxaa ka mida maxay kuwa farjigooda xifdiyey baa layidhi farjiga sida ugu fiican ee loo xifdiyaana waa kuu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam yaa macshara ashabaab man istataaca minkum an yatasawaj falyatazawajuuna war dhallinyarooy buu nabigu yidhi guurka dadkao dhan baa u baahan laakiin iyaga si gaaraa loo tilmaamay odayadaa u baahan da-da dhaxaa u baahan guur waa loo wada baahan yahay iyadoo loo wada baahan yahay dadka uu nabigu dhiiri geliyey waa dad gaar ah lama odhanin yaa ayuha shuyuukh man istataaca minkum aziwaaj falyatazawaj lama odhan laakiin waxaa la yidhi iyadoo lala hadlayo macaashir ashabaab dhallinyaroy man istataaca minkum ulbaa'a ciddii awoodda inay guursato baa-adu waa waxyaabihii yaryaraay ku baxayay guurka cidda awoodda falyatazawaj buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha guursado waayo fa innahu axsanu lilfarj waqadu lilbasar nabigu wuxuu ku sheegay ishaaduna inay dhowrsoomayso farjigaaguna inuu dhowrsoomayo waxaa la yidhahdaa qofku guurka wuxuu ka helaa sakan deganaanshiiyo saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilay wamin aayaatihi inta ilaahay aayaad suuraddaasi wamin aayaatihi baa ku badan ilaahay wuxuu ka warramayaa aayaadka waaweyn ee ilaahay ku tusinaya subxaana wa tacaala aayaadkaa waaweyn waxaa ka mida baa ilaahay yidhi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha in ilaahay subxaana wa tacaala idiin abuuray lamaane idinka dhigay maxaa la idinka dhigay litaskunuu ilayha baa ilahay yidhi sakanka markaasuu qofku dareemaa waa markuu xasilo sakanku waa min asukuun buu ka yimi waa ina xasishaan daraaddeed buu nebigu ayuu qur-aanku tilmaamaya idan guurku wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo oo qofka muslimka ahi maadaama la yidhi diintiisa ku dhammaystirmaysa oo farjigiisa ku xifdimaya oo naftiisa sukuun iyo xasilooni dareemaysa wax uu qaalisana qof bini aadamay uu helaana waa ubad adduunka marka la joogo waxa dhex yaalla almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati addunya zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniin waxa ziinada adduunka taalana waxa u qiimo badan waa qofka bini aadamka ah dee meesha qof bini aadama ilaahay uu kaa siiyaana waa inaad guursato maxaa guurka hortaagan malaa taasaa ka macaan inaynu wax ka tilmaamno maxaa dhalinyaradu u guursan weyda wadanadan aynu joogno cultureka ka jira dhibaatooyinka uu dhalay oo ah dhibaatooyinka xadaaradu ay samaysay ayaa ka mid ah inuu guurku yaraado sababo badan daraaddood kow sabab dhaqaale waxbaa ka jira oo waxay yidhaahdaan markay taariikhda yurub ka warramayaan waqtigii wax la dhali jiray yurub ay badan jirtay
ragga waxa la siin jiray